waxaa ila jooga wariye caan ah oo Soomaaliyeed oo dadka Soomaalidu intiisa badan ay aad u yaqaanaan oo la yiraahdo Cali Cabdi Xaraare horena uga shaqayn jiray idaacadda loo yaqaan BBC-da iyo Voice of America ilaa sanadkii 2006 wuxuu ka shaqaynayay ilaa bishan November idaacadda loo yaqaan Voice of America isagoo shaqadii mar hore ka tagay Cali bal ka waran marka hore ku soo dhawo Minnesota oo magaalada hadii mar labaad ku soo dhawo aad baad mahadsan tahay Cabdi waxaan kaloo mahad u celinayaa iyadana inaan ka tagayn fanaanadii iyaduna in madadaalinaysay deeqa bilan oo iyaduna maanta inagala qayb gashay barnaamijkan oo dhinaca madadaalada inoo qaabilsanayd Cali waxaad iga warantaa marka hore sida ay u jiraan isbedelada ku dhacay idaacadda inkastoo mar hore aad ka tagtay in dhowr bilood baad hadda ka shaqaynayn maxaa isbedelay ku dhacay idaacaddii dad badan oo Soomaaliyeed baa hadda waxay leeyihiin idaacaddii isbedel badan baa ku dhacay sida wax uga jiraan runtii Cabdi sidaan la socono waxa inta badan dadka Soomaalida marka ay hawl galaan ama ay hawl qabsadaan waxa dhacda in hawsha sida ku bilaabantay ay wax iska bedelaan ama majarihii hadii jeer loogu talagalay in hawshaas u socoto in isbedel ku yimaado taas waxay ku xiran tahay hadii jeer maamulka xilliga gacanta ku haya waxa hawsha la qabanayo idaacadda Voice of America lanteed afka Soomaaliga sidaan la soconay waxa la soo gashay dardar cusub iyadoo marka laga sii niyad jabsanaa sidaan la soconay idaacadda BBC-da waxyaalihii ka socday iyo barnaamijyadii ay dhinaca Soomaalida u soo gudbin jireen dardartii cusbayd wax moodaa hadana marka loo eego heerka ay intii sana 4 sanadood ay ugu dambeysay ay jirtay in ay xagga sare ka soo kacday oo dabeetana hoos ay u sii gashay taas waxa ahayd oo aan ku tilmaami karay oran karaya maamul xumo dhinaca Soomaalida ka timid ay idaacadaasi sumcadeedii iyo sharafteedii iyo qaayihii ay lahayd ee markii ummadda Soomaaliyeed ay u rajeynayeen ay hoos uga soo dhacday Ali idaacadda muddaad ka sii maqnayd hadda intii bishii November oo dhan maaliya iyo December meelaad shaqada ka maqnayd waa maxay sababaha aad shaqada uga tagtay runtii Cabdi dad badan baa su'aasha isweydiiya laakiin idaacado badan oo dadka Soomaalida ay dhageystaan oo Europe iyo Canada u badan iyo Africa ba oo aan ka hadlay ama interview la yeeshay ayaan u gudbiyay sida dhabta ay jirtay laakiin waxa laga yaabaa in dad badan oo maqlay sheekooyin aan ku tilmaami karayo in ay tahay character assassination oo kale dad inta badan israaxada qof markay aad qabataan sumcadiisa xumay oo kale in iyana ay maqal kale ama ay haystaan version kale laakiin sida dhabta xaweye contract baan ku joognay sida la socotid idaacadda VOA-da contract markuu dhamaado sanadkii mar dadka ayaa markaa loo cusboonaysiin jiray anigu waxay dhamaatay 30kii bishii October ay shaqadu ka dhamaatay contract marka automatically waa la buuxin jiray ama waa la cusboonaysiin jiray waxa awoodda leh cusboonaysiinta markaasi ninka isagoo horjoogaha u ah idaacadda oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Yabarow marka muddo sanad iyo bara ayaa waxa noo dhaxaysay xurguf iyo khilaaf dhinaciisa ka yimid oo khilaafkaasna waxa uu ka yimid fikrada aan soo jeediyay oo ahayd idaacaddu inay tahay idaacad Soomaaliyeed in idaacadda Cabdiraxmaan uu ka daayay qabyaalada tooska ay ku wado anagu umma Soomaaliyeed baan u dhaxaynay ummadii Soomaaliyeed aan u dhaxaynay ayaanu dhinac raacnay isagoo hoggaanka uu dhinac noo duway fikirkiisii uu ku majira habaabiyay idaacaddii dabeetana intii sanadii barka ahayd ee aan lahaaniyo idaacadda sidan ka daa ummad Soomaaliyeed baan u shaqeynaa reer uma shaqeyno qoys quri meel ma gaari karo waxaas oo dhan markiis biirsadeen baa laga yaabaa inuu dhibsaday dabeetana contractkii ayuu i cusboonaysiin waayay intaas baa inaga taas laabanayna idaacaddu qaabka u shaqeyso idaacadda waxa joogay dad fara badan oo caana oo Soomaaliya wariyaal caanaha hadday noqon lahayd Cabdisalaan Herari Axmed Xasan Cawke oo Soomaali ay qof walba inta badan garanayaan Farxiye Cabsiye oo ahayd gabdhihii Maxamed Cabdalla waxa joogo kale iyo Cabdisalaan Salwe wiil oran jiray Cabdisalaan Salwe waa runta khadra guray dad fara badan oo dadkaas barnaamijyadooda markii la bilaabay idaacadda ay noqotay idaacadda BBC-da la dhageysanba waay dadka inta leeg oo adiguna ku jirta ay idaacadda uga wada tageen waa maxay sababta horta duhur cad ayaa Cabdisalaan Herari iyo Cawkaba waliba baajashka marka shaqo laga tayo waxba la yiraahdo waxaan siinay 10 maalmood oo notice duhur cad bay iyagu soo tuureen oo albaabka ka baxeen marka saa lagu soo kari waayay bal maanta qura idaacadda gala studio abadan bay dhahay macnaha markii subaxii ay soo shaqo tageen
ayn bay labadoodu bay yidhahdeen baajajka waa kuwaas nabadgelyo si kasta waa loola hadlay shaqadiina way joogaan shaqadii way yimaadeen idaacadda mikrofoonada ma fariisanay leeyihin way diideen studio ma garan baan wax mikrofon uu leeyahay VOA ma qabanayno saacada laga bilaabo hawlihiina waa kaas waliba inta waxa sii dheeraa lacagahoodii bay ka tageen xitaa mushaarkoodii ma bay sugin oo processka xooga qaato way ka dhaqaajiyeen taas waxay ahayd cadam muujinaysay sidii u arkayeen maamulka u socday marka idaacadda BBC ka yimaadeen way u qaadan waayeen in VOA ay sidan u shaqeynayso oo BBC sababta uga soo tageen tan uga sii sababta ay BBC uga soo tageen ayaaba laba jib waxa daro dibidhal ka dar oo dibidhal yani laba dar mid dooraba noqotay tii hore ayaaba loo qaatay markaa duhur cad Soomaalidu dhan wada ogeed waxa jira calow nin isna wariicaan oo Soomaaliyeed la yiraahdo Maxamed Cumar Haydara oo ahaa ninkii bilaabay idaacadan sanadkii 1992 markii Mareykanku ay Soomaaliya galeen isaguna wuxuu ka ahaa ninkii madaxda ka idaacadda chief editor isaga ka ahaa sidee bay cadaaladda inta leegi waa maxay in la hormariyo oo ninkan madax looga dhigo Maxamed Cumar Haydara wuxuu ahaa wariye aad oo la yaqaan muddo dheer oo inagu wada lafteenu yaraanteen aanu dhageysan jirnay aad u admacaan si gaaran waxay saaxiib u ahaayeen Cabdiraxmaan Yabro waxay saaxiib ahaayeen muddo 30 sanadood Yabro ayaa ka eriyay oo waliba askar uu keenay deskiga uu saw marka meeshii fadhigiisay duhur cad baa isagana meesha laga saaray sababta loola saaray waxa doorashada ninka ay weydiisay waxay ku kala duwan yihiin laba qof baa u tartamay inay head of Somali service ka noqdaan idaacadda madax ka noqdaan Yabro iyo Haydra bay ahaayeen oo meesha ugu waaweynaa marka Haydra wuxuu sitay passport Ingiriis marka ugu dambeystii waxay ku kala baxeen oo markaasi loo sheegay Haydra in sababta meesha lagu dhiibi waayo ay tahay isagoo aan ahayn citizen Mareykan ahayn ee yahay nin British xasayeesha uu kan xaq u leeyahay Yabro waan ognahay Haydra inta idaacadu ka soo shaqeeyay iyo khibrad u lahaa laakiin Yabro 25 sanadood isagoo cab driver ama taxi lu ka ahaa Washington DC imka lafteeda uu yahay head of Somali service-ka sabtida axad wuxuu ku turtaa taxigiisii oo weli ka shaqeeya ali hore soo noqday idaacadda waxa xukuman la yiraahdo anu waxaan garanayaa December 2006 idaacadda waxa xukuma gabadh madow oo Mareykan ah waxa ku xigay Fred Cooper la yiraahdo cadaana waxa ku sixday Nakashi la yiraahdo Amhara maalmihii idaacadda la yimi Minnesota ahayd waxa ugu horeysay ninka imtixaanka qaaday oo Yabro laftiisa markii shaqada la siinayay ninka Amharka oo anu aan markaadka maalinta goobta fadhiyay ugu yiri Soomaaliyeed ka timid idaacadda Magdoon sanad gashadaha gobolkeebaad ka timid markii uu yiri gobolkeebaad ka timid daanu Soomaaliyeed ka yimid su'aasha adoo aad markaadka ahayd adiga Shiine iyo waliba gabadha ka faa'iido ka shaqeyso Soomaaliya oo magaceeda gooyay adigu soo raali kama ahayn markaa lagu weydiiyay lagu yiri war xageebaad ka timid ma waxaad ku yiri waxaan ka yimid Somaliland Puntland Somali Southern al-shabaab whatever aan su'aasha ka jawaabo Abdu horta imtixaankii waa joogtay marka halkan UVA lagu qaaday waxay ku bees kareysnayd reer iyo qabiil laakiin ka dambeeyay marka ilaa meesha Soomaali ma joogin markii ugu horeysay Amharka ninka halkan yimi isagu Naguus la yiraahdo laakiin fariinta iyo sida uu saan qaaday waxa ahayd jawaab uu soo siiyay Cabdiraxmaan Yabro nin Amhari iyo Soomaali reer ma tahay ma oran karo mana kala yaqaano laakiin Cabdiraxmaan Yabro waqtigaas jooga Washington DC ayaa isagu soo tilmaamay in Soomaalida lagu kala sarsaaro qabaa'il waxaan kamid ahaa dadkii uu weydiiyay ima oran runtii xagaad ka timid laakiin wuxuu yiri xagaad ku dhalatay which lamida dabeet waxaan ku jawaabay anigu waxaan ku dhashay Hargeysa Somaliland oo runtii ahayd imtixaankii markii testigii aan baas gareeyay kadib 3 bilood kadib ay qof Soomaali ku soo yiri malaha de ninka reerkiisa iyo laga yaabo inay kala duwan yihiin iyo meesha ku dhashay anu ciidan doona aan haddaan dadhuus Mareeb ku dhashay ama xamar ku dhasho way kala duwanaan karaan ninkii Amharka waxyaalaha siisan waxa kamid ah ayaa 2 bilood kadib telefoon soo diray igu yiri alow aad ku dhalatid magaalada Hargeysa laakiin Puntland baad ka soo jeedaa markaasaan weydiiyay anigu what's the difference between Puntland iyo Somaliland sidee idaacadda loogu bees garan karayaa reer taasi mid cad oo aan cidda ka saaray idaacadda waxa ka shaqeeya waxa la wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka barnaamijkeeduna waxay had iyo jeer madaxa ay saaraan waa in Soomaaliya muujadaheeda siyaasadeed isdhexyaacay wax laga bedelo markaas ma oran kartid ba wasaaradda arrimaha dibadda raali ka ah in la yiraahdo shaqada marka dadka la qorayo groupkaas aanu gashano groupkan aanu gashano
mise waa arrin u dhaxayso Naguuse iyo Yabrow wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka anigu aad baan u amaanayaa in ummadda Soomaaliyeed ay u furaan idaacad si international caalamiya oo ula hadasha dadkeeda oo la doonayo markaa inay dhaqankeeda iyo wanaagga u dhaxeeyo dadka Soomaalida iyo Mareykanka ay u gudbiso la doonayo wararka dhacdooyinka dhabta ee xaqiiqda ah ee ka dhacaya dalkeeda iyo dibadda ay u gudbiso aad baan ugu amaanayaa aad kuma qabaan laakiin sax weeye war uma hayaan xaqiiqdiina ma oga waxa gudaha VOA ka socda inta aan calo khadka telefoonka aan qaadan waxaan doonayaa inaan ku sheego inaan ku weydiiyo jaraa'idada qaarkood waxay qorayaan jaraa'idada loo yaqaan afka Soomaaliga ku hadla waxay qorayaan Cali Xaraare waxa lagu qabtay qaad propaganda noocaas oo fara badan iyadoo ay markii horeba qoreen rag waaweyn oo magac lahaa oo Cawke iyo dad fara badan oo garanayana ay waxyaabo badan oo kala ka qoreen marka arrinta qaadka ma jirta in lagu qabtay waxa jirta saashaasna su'aal loo baahan yahay oo valid waxa jirta Cabdow waxyaalaha ku leeyahay character assassination-ka in qofka sumcadiisa wax lagu baabiyo waxa weeyaan waa waxa is oran kara Soomaalidu malaha waad ku kala hormar kartaa runtii waxa jirtay dawladda Mareykanku waxbay kugu tumi kartaa ama waxbay ku eedan kartaa waa argagixis lagu tumi karaa in qaad jeebka kugu jiro dad Soomaaliyeed bay noo qaadkooda in badan la cuno way dhici kartaa horta intaan qaban telefoonkaas taan qabaan waxa weeye aniga eedii lay soo jeediyay aroortii markaan tagay maxkamadda 12 minutes ma fadhiin waxa lagu dismiss baatay eedii aan kugu soo eedanay saaxiibow shaki buu ahaa waad mahadsan tahay wixii aan kaaga shakinana waa lagu waayay albaab ka bax marka shaqada iyo arrimihii qaadka lagu weeyay isma khusayaan inta u dhaxaysana waxa weeye 9 bilood aniga maalintii ugu horeysay maxkamadda la keenay la dismiss baatay next day maxaa la oran waayay shaqada ka tag lama oran marka website-da waxa lagu soo qoray yaa ka dambeysay hal website oo uu soo qoray Yabrow wax ku qoro oo uu horena shaqaalihii ka tagay idaacadda ugu caayi jiray ama character assassination ugu sameyn jiray oo la yaqaano oo Soomaali oo dhan oo taqaano oo soo noqonaynaa aan secret weydiin khadka telefoonka halo assalaamu calaykum calaykum salaam walaalku soo dhawow والله ما سويت أولادي عبد الله وأنك سلامي ولي علي وأنك سلامي أبدا صاحب وكاغد نور سودو ونقل دوبي من ولي على حرارة لصوماليا ولياش الصومالية أنا على كلها خطوة كحما وحكذا كل عين ماشي كشغل جري ماشي ما كان تقولنا وقربة ومدى الصومالية من تجي الله كلا صار مع بورا مليون إنه قديم كفر هذا ويجي أنا حالا قبا على حدا مثل اللي يقولوا فيه رابع قارن الصلاة وأنا ولو هذا من الصفار هذا من نوتو بطوله أبدا حلا يعرف صح وقبل معي سودو دوتهم هذه أدبار ما تطلع صحيح علي أنت أين سؤالها كله وقلين واحد على سؤالها كله بلن قادنا يا دور عليه سؤالها كفر بدون هلا السلام عليكم هلو داود السلام عليكم وعليكم السلام سودو ولا شيء ولا وجه سلام يا وكاغد نور سودو ولا waxaan idin sheegayaa TV-ga horta waxa uu qabtay dad Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed meel kasta joogaan marka horta ma fiicna qabiilka iyo qabyaaladu way ka dheeratay dadka Soomaaliyeed marka waxaana fiican qofka Soomaaliyeed meesha uu ka soo jeedo ama qabiilkiisa dhow sheegan kara iyo meeshiisa hadii horumar leedahay waxaan jecelahay TV-ga inta badan marka laga hadlayo wadanka Soomaaliland inta badan uguma soo daro TV-yada ma ka hadashaan I don't know waxay tahay ma garanayo inta dadka والله أضد بسطي مرة دي هرجيسة ولا صادق قاعدين سومال لما بلير ما وحكي لك هو هذا مرمانيا يعني علي سؤال كلام قادر يا السلام عليكم سومال ما نجح جدده السلام عليكم داود السلام عليكم سودو ولاكس السلام عليكم أبا نسامي دمانتين وياها عبد الله أبا نسامي أنا ومحمد حسن سؤال طبعا هو أبا وحنا هاي أدخل على وياها عنك وأنا إن أبا وحنا أظن إلى عد قبيلة يوحى قدر دلو waxaan leenahay soo dhawow insha Allah khayr badan aad baan kuugu mahadinayaa saaxiibo thank you very much maxaa xasanaad baan kuugu mahadinayaa saaxiibo aan salaam in dhawadna ismaan arag barmaanaya waayahay cali gabadhii hadalkeedii miyaad ka sii dabatay maya gabadhu waa walaasheen waan soo dhaweynaynaa Somaliland Puntland dhulka Dhexland Muqdisholand Banaadirland Somaliland waa dhul Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed meel la inaga xiga ma jirto inta wali barnaamijkeena ku dhex jirnay waxa jeclay in dadweynaha hal mar xusuusiyo intaan leenka aan qaadan inaan xusuusiyo bal waxaad in yar iga sheekaysaa wixii kugu cajiibka badnaa barnaamijkii la oran jiray aweyska sabti aweyska Washington